insha Allah taala waxaan jecelahay inaan bartan aan ku soo gudbiyo garanaysaa xog iyo qoraal muuqaal aan doonayo inaan baaq ugu diro xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hay'adaha arrimaha farsamada gacanta iyo technical-ka ku shaqo leh maadaama aan ka mid ahay mas'uuliyiinta ururka Haldoor isla markaana ahay agaasimaha fulinta ama agaasimaha guud ee ururka waxa xilkaas oo dhawaan muddo laga joogo imaka wiig ka hor la doortay isla markaana xilkan la wareegay hubaashii waxa jira iskuul ururku mashaariic fara badan oo uu wado oo ka mid tahay mashruuca ugu weyn ee ururkooda uu yahay dugsiga ama macadka farsamada gacanta kaasoo garanaysaa muddo imika soconayay oo wadnay waxaana hubaashii si fiican uu dugsiga macadka farsamada gacanta u bilaabmay 27 bishii Maarch ee 2016 taasoo fayskii koowaad lagu bilaabay lacag dhan $120,000 hab contribution ay iskaga soo ururiyeen xubnaha ururka ee ku kala nool daafaha dunida kuwaasoo ay magaranaysaa ay kulmisay qadiyad xoogan oo ah magaranaysaa inay ummadooda iyo dadkooda iyo dalkooda ay wax u qabtaan isla markaana horumarka soconaya ee xukuumadda curdinka iyo magaranaysaa waddankan curdinka uu ku socdo ayaguna ka qayb qaataan maadaama oo ay ka mid yihiin public sector-isku meelaha ugu waaweyn ee waddanka horumaro hawsha dhalinyarada aqoon-yahana oo qurba joog iyo qaran joogba leh ayaa hindistay fikirkan ah in macadka farsamada gacanta laga hirgeliyo caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa kaas oo markii la darsay baahiyo badan oo ay ka mid tahay shaqo la'aantu ay ka mid tahay tahriibka oo garanaysaa xilliga aan aad u soconayay oo ummadda Soomaaliland oo dhan damqay iyo ummadda Soomaaliyeed xataa Afrika oo dhan taasna ay ka dhalatay in macad farsamada gacanta ay ummaddu garanaysaa ay ku noqdaan skilled oo ay ku shaqeystaan inaanu hindisno alxamdulillah fikirkaas wuxuu noqday mid hirgalay midhadhalkiisina insha Allah taala soo dhow yahay iskuulkina uu taagan yahay gabagabo ama macadkii uu taagan yahay gabagabo iyadoo macadkaasi la rajaynayo inuu sanadkan gudihiisa noqdo mid shaqeeya oo magaranaysaa shaqo galo hawl gala ardaydii horeysana qaatay insha Allah taala sida qorshe loogu jirta ilaahay baa garan kara dadka wuxuu dhici karaa laakiin saasaan noo qorsheysan waxa kale iyadana xusad mudan in xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan xukuumaddii Siiraayo ay door laxaad ka qaadatay hirgelinta dugsiga farsamada gacanta ama macadkan kaasoo ay lacag wasiiradii xilligaasi wasiir Samsam Cabdi Aadan ay ku dartay $240,000 xaqiiqdii $240,000 barkiina soo gaaray ma barkii kalena insha Allah taala aan rajaynayno in xukuumadda Muuse Biix Cabdi ay bixin doonto dhawaan insha Allah aan dhawaan oo hawlgali doono marka yara kala miirta laacada dawladdu waxa kale iyaguna garanaysaa door ka qaatay ganacsato iyo garanaysaa public sectors kale oo iyaguna magaranaysaa kamid dadka magaranaysaa ihsaanka iyo samaha iyo wanaaga iyo horumarka jecel oo runtii ku hirta in magaranaysaa wax la hirgeliyo iyana waxaan dhinaca kale ka jaleeci doonaa bal isla markaana baa ku diri doonaa dhammaan stakeholders-ka uu ururku leeyahay hadday tahay bulshooyinka qurba joogga waliba intooda magaranaysaa ihsaanka iyo samaha iyo samafalka jecel waxa kale oo iyana baa ku diri doona xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland insha Allah taala si dugsigu dhameystirmo maadaama uu imika qabiye yahay una taagan yahay in ay intii ku harsanayd insha Allah taala si dhaqso ah nooga gaarsiiyaan maadaama ay magaranaysaa hawshaasi muhiim tahay iskuulkana taagan yahay waxa kale oo doonayaa inaan iyana
ka warramo hindisayaasha iyo howlaha ay hor yaalla ee aan jeclahay inaan intaan agaasimahayo aan ka faa'iideeyo insha allahu tacaala waxaan xoogga iyo miisaanka saari doonaa bal mashaariicda socota oo ugu weyn yahay mashruuca hirgelinta iyo dhammaystirka dugsiga farsamada gacanta ama mashruuca farsamada gacanta aan wadno sidoo kale waxaan ku dadaali doonaa oo qorshayaasheeda ugu waaweyn ah inaan iyana hindiso qorshayaal cusub oo lagu horumarinayo isla markaana loogu adeegayo bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan bulshada danyarta oo ah inaan dib soo celiyo mashruucii uu ururkani ku hana qaaday kuna caalamaalay ee ahaa mashruucii sadaqaadka iyo magaranaysaa quudinta dadka magaranaysaa tabaalaysan iyo garabsiinta ummadda magaranaysaa jiricsan kuwa dhaqaatiirta yaalla kuwa ay magaranaysaa waayuhu halakeeyeen ee guryahoodii aan dab ku shidanin ummaddaasoo jecelahay intaan xilka hayo insha allahu tacaala inaan dadaal badan ka muujiyo oon dad badan aan u dadaalo hubaasha ururkuna intuu hawshaas yara hakiyey wax badan ayaa kaga daato ducadii baa meesha ka maqan ducaduna waa ta keliya lagu tamariyo ducada masaakiintu waxaa kaloon iyadana ku dadaalayaa xoojinta xidhiidhada magaranaysaa ee qurxoon ee miisaanka ku fadhiya ee naga dhexeeya stakeholderska hadday tahay dalladda guud ee ururada Somaliland ee sooyo hadday tahay jamhuuriyadda Somaliland waliba executive-ka waxaan wadaa hadday tahay golaha wasiirada iyo magaranaysaa xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland guud ahaan hay'adaha maxalliga iyo waliba hay'adaha caalamiga ee arrimahan aan wadno ee samafalka iyo magaranaysaa hirgelinta dhismayaasha farsamada gacanta iyo kor soo qaadka skiilka xirfadaha aan iyadana magaranaysaa ka hawlgali doono oo aan stakeholderska xiriir toos ah la yeelan doono insha allahu tacaala waxyaabaha iyana ay qorshayso waxaa ka mid ah in guddi khubaro ah oo arrimaha farsamada gacanta magaranaysaa khabiir ku ah inaan iyadana abuuro taasoo tala bixin iyo tusmeynba ka samayn doonta sidii magaranaysaa iskuulkan loo dhammaystiri lahaa isla markaana u noqon lahaa mid shaqeeya iyana waxa aan meesha ka maqlahayn oo aan iyana miisaan fiican ku fadhida isla markaana ka ah meelihii uu ka hirgalay fikirkan iyo dugsigan farsamada gacantu waxa weeyaan inaan sii xoojino wakiiladii u joogay ururka wadamada kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland mawlido aad iyo aad badan waasanta walaalo horta runtii waa run oo saad xustay farsamada gacantu waa skill wax soo saar leh qofkuna naftiisa ku dabaro oo kaga baxa magaranaysaa inuu cod ku tiirsanaado xooggiisa iyo muruqiisa maalo sidoo kale inuu ogsoonahay Somaliland waa wadan kor u socda oo koraya oo sanadkii hore laba mid ah taasoo dhismayaashiisa iyo magaranaysaa kor u kaca dhaqaalaba ay yihiin laba isla socda oo koraya qofka garanaysaa skill kale hina oo runtii noqonayo mid raaca dadka ka kalena oo noqonayo mid ka hara annagoo intaasoo dhan ku xisaabtamayna insha allahu tacaala waxaa rajada koowaadna horta inaan hirgelino dugsigan isla markaana uu noqdo mid successful ah oo si fiican u shaqeeya baahi badan oo garanaysaa bulshada Soomaaliland ka jirtana dabool ah waxyaabaha kale oo qorshaysan wax kamid ah horta inaan dugsiga macadkan farsamada gacanta intaas lagu dayn oo waxa jira dhul garanaysaa aan jecel lahay inaan imika la wareegno oo aan doonayno inaan ku ballaarino iskuulka waqti ka dambaysa way noo qorshaysan tahay oo qorshahan way noogu jirtaa inaanu macaddo kale oo kuwan oo kale ah aanu dhisno laakiin waxa ka horeysa inaan horta kan si fiican ugu guuleysano bismillaahi kariim